عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, that the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said, whoever removes a worldly grief from a believer, Allah will remove from him one of the griefs of the day of resurrection. And whoever alleviates the need of a needy person, Allah will alleviate his needs in this world and the hereafter. Whoever shields or hides the misdeeds of a Muslim, Allah will shield him in this world and the hereafter. And Allah will aid his slave so long as he aids his brother. And whoever follows a path to seek knowledge therein, Allah will make easy for him a path to paradise. No people gather together in one of the houses of Allah, reciting the book of Allah and studying it among themselves, except that Sakina, tranquility, descends upon them, and mercy envelops them, and the angels surround them, and Allah mentions them amongst those who are with him. And whoever is slowed down by his actions will not be hastened forward by his lineage. Narrated by Muslim in these words. waxaa laga wariyey Abu Hurayra eebbe ha ka raali noqdee waxaa laga wariyey in nebiga sallallahu calayhi wasallam uu yidhi: qofkii ka faliya qofka muuminka ah dhib adduun, alle wuxuu ka faynayaa dhib maalinta qiyaame. qofkii u fududeeya qof dhib ku jiro, alle wuu u fududeeyaa adduun iyo aakhiraba. qof kasta oo qofka muslimka ah ceebihiisa qariya, alle wuu asturaa xumaantiisa adduun iyo aakhiraba. alle wuu u gargaaraa addoonka inta uu addoonku u gargaarayo walaalkiis. qofkii dariiq cilmi raadis ah mara, alle wuxuu u fududaynayaa waddo uu ku galo jannada. ma jiro dad ku soo shirta guryaha eebbe mid ka mid ah oo akhriya kitaabka eebbe dhexdooda, kuna baranaya dhexdooda, in xasilooni ku soo degto mooyee, raxmadna ay daboosho, malaa'igtuna way ku wareegsan tahay, eebbena kuwa la jooga buu u sheegi dadkaas kuway yihiin. qofkii camalkiisu hoos u dhigaa nasabkiisu ma soo dedejiyo. Muslim baa wariyey oo kelmaddan wata.